buugga fursadda wadaniga Soomaaliyeed waxa uu yahay ama taariikhdiisa kooban ama sababihii igu kalifay buuggan ay taynaan qoro inaad ila ogaataan baa hadda muhiim ah buugga fursadda wadaniga Soomaaliyeed markuu horeyso wuxuu ku mataansan yahay barnaamij la dhaho fursadda wadaniga Soomaaliyeed oo aan ku meeriyin jiray gobolo badan oo dalka kamid ah asagoo ahaa soo jeedin sidaas darteed waxaan hindisay oo nalifay ama aan naftayda kula tashtay dadku waa dheeraan karaa qofku waa dhiman karaa waana dheeraan karaa inaan dhaxal reebo marka horeysa oo aan buuggii wixii qoran baa qurumahare muxuu hadal qiimo leeyahay markii horeysay hadal baan waday inkastoo ficil ahayd oo magaalo intaan ka tago hadana aan magaalo kala tagayay laakiin buuggu barnaamijku waxa soo jeedin ama casharkay sidoo kalena socdaalkaygiiba caqabad ku timiyo gobolo badan oo ba ii suurtagali waayay inaan tago saas darteed baan buugga u qoray inaan doorkayga dalka ka qaato waajibaadkayga dalkayga saaran aan ka qaato baa kamid ah sababahan buugga u qoray gudashada dalka iyo inaan caqabada dalkeena ka jirto in yurun xal ka noqdo baa kamid ah sababahan buugga u qoray in badan baa aragteen buugga jacaylka aan u qabo iyo ka go'naanshaha aan u qabo iyo gardaadinta aan u qabo iyo sidaan ugu heelanahay inuu noloshayda ku soo biiro buuggan wuxuu ifka yimid 2019 bishii labadeedii buu ifka yimid maantana waxa farxad u ah isaga gardaarintan gardaadiye jacaylka iyo kalgacalka aan u qabay aan rabay ummadda Soomaaliyeed ku gaarsiiyo inuu marayo magaaladii shanaad ee lagu soo bandhigo markii horeysa waxaan ku daafuray caasimadda dalka Soomaaliyeed Muqdisho oo runtii mudan in buug iyo shaqo kasta la qabanayo lagu daafuro markii ku xigtayna bandhigiisu wuxuu ka dhacay xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo markii ku xigtayna wuxuu ka dhacay caasimadda ilbaxnimada iyo xadaaradda gobolka Bari ee Boosaaso markii ku xigtayna wuxuu ka dhacay Qardho xarunta hidaha dhaqanka markii uu dambeysana wuxuu taagan yahay caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland buugga marka laamiga waa laga dajinayaa buug wadaniga waaye waxa loo sii wadaa oo aan u sii maxaan ku dhahdaa tahniyadeenaya walaalahayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xarunta gobolka Sool Laascaanood u baahan in wax loo soo sheego u baahan in la wacyi geliyo u baahan in la dhirigeliyo buugga wixii uu ka hadlaayo wadaniyada u horeys wadaniyada oo aan wax badan ka hadlay wadaniyada oo hore looga soo hadlay wadaniyada oo anigu markaan waqti badan raadinteeda aan galiyay ummadda Soomaaliyeed ma ahan wadaniyiin laakiin waa mucaashaqiin oo maxay jecel yihiin ummadda Soomaaliyeed wadaniyada jecel yihiin laakiin wadaniyiin ma ahan taa sababta aan u yiri ereygaas waxay tahay qof kasto inaga mid ah oo ummadda Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu qiroodo marka uu dalkiisa dhibaatana haystan uu dareemayaa heesta calankiisa marka la qaadayna uu dareemayaa uu qiroonaya madaxweynaha qarankiisa marka arko sidoo kale uu dareemayaa 30 sanadood baynu hadaba qirada ku jirnay su'aasha isweydiintu madu waxay tahay ma waxaan nahay wadaniyaal mase waxaan nahay mucaashaqiin waliin qof jacayl ku dhacay meesha fadhiya haddaba waxaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa ummad mucaashaqiin ah waxay jecel yihiin wadaniyada laakiin ma aha wadaniyiin xaqiiqatan haddaan wadaniyad ahaan lahayn oo qalbigayga iyo niyadayda ay ka go'naan lahayd wadaniyadu xaqiiqatan dalkeenu maanta halkaan ku sugnaadeen dhibaatada sirrafaadkaas ma inaan la kulaneen ummad waxaynu nahay 30 sano hadlaysay oo wax ficil iska dhawray inay sameeyaan abwaanku waa gabyaya dhibaato sheegaya aqoonyahanka ama professorku uu hadlaya wuxuu leeyahay Soomaaliya dhibaato ka jirta siyaasigu uu hadlaya wuxuu leeyahay Soomaaliya dhibaato ka jirta macallinkii uu hadlaya wuxuu leeyahay Soomaaliya dhibaato ka jirta ururada dhalinyaradu way hadlayaan waxay leeyahay Soomaaliya dhibaato ka jirta war maba xumee Soomaaliya dhibaato ka jirtee miyaan wax inta dheer oo qorshe ah oo lagaga samata bixinayo dadka dhibaatada miyaan lagu dareeynba maya lagu ma darayo qof kasto Soomaaliyeed diyaar wuxuu yahay inuu sheego dhibaatada dalka jirta qofkuna hadduu dhibaatada dalka jirta sheego macnaheedu waxa weeye inuu dhibaatada kama mid yahay haddaad sheegtid dhibaatada dalka jirta waxa weeye inuu dhibaatada ma sameyn weey macnaheedu oo waa yahay xalay waxa ay qarran joogayo bandhig ku lahaayo waxa ay dalka mahalloo yahay booqan baa looga yimi waa yahay xagee baa laga qasayaa macnaheedu haddii qof kasto hadlaaba uu yiraahdo hadal qurux badan ku hadloo yiraahdo war meeshaan ay maxaan ku dhahdaa dhibaato ka jirta xilli ma ugu talagalnay haddaba inaan dhibka xallino waa waqti isweydiin mudan xilli ma ayaan ugu talagalnay dhibka aan 30 sano sheegaynay inaan xallino tusaale yar waxa jirta badan aan soo qaato markaan ka sheekaynayo hadalka ficil la'aanta ee dalkeena haysta waxa kamid ah gurigayga hortiisa waxa ka qodan ceelkaas anigu waan arkay oo guriga iska leh
waxaan leeyahay gurigeeda hortiisa ceel baa ka qodan darisku waa arkaya wuxuu leeyahay najmo gurigeeda horteeda ceel baa ka qodan ka wadada maraya wuu arkaya wuxuu leeyahay najmo gurigeeda horteeda ceel baa ka qodan khatar waxa ugu jira dadka najmo u soo wareegaya iyo najmo laftirkeedii cid guriga la degan laakiin ma jiro qof yoranaya godkan waa la aasaya maxaad ka fahanteen halka waxaalada Soomaaliya ku sugan tahay waxaalada Soomaaliya ku sugan tahay dhibaatadeeda cid walba way aragtaa qof Soomaaliyeed oo dhibaatada dalka taala ay ka daahsan tahay ma jirto taadhigeeda qof wax ka qabanaya ma jirto